ololo ballaaran oo lagula dagaalamayo dhuxulaysiga iyo xaalufinta deegaanka ayaa in muddo ahba ka socday degmada Xudun ee gobolka Sool. Ololahan lagula dagaalamayo dhuxulaysiga oo iskoodu abaabuleen waxgaradka iyo aqoonyahanka degmada Xudun ayaa lagu bartilmaameedsaday dhuxulaysato in muddo ahba ku jiray labada buureed ee Xagrin iyo Buurcaanood kuwaasoo khasaare lixaad leh u geystay dhirta loo yaqaano hareeriga qudhaca iyo galoolka oo Rabbi ku manaystay deegaanadaasi. howlgalkan ballaaran ee lala galay dhuxulaysiga iyo xaalufinta deegaanka ayaa lagu gubay dhuxul aad u tiro badan oo ay diyaarsadeen dhuxulaysatadu, waxaana wacyigelin maxaadirooyin lagu qabtay masaajidada iyo kulamo badan oo laga yeeshay sidii loo joojin lahaa guud ahaanba dhuxulaysiga. Ugu dambeyntii saxaafadda la hadlay qaar ka mid ah guddida loo igmaday la dagaalanka xaalufka iyo dhuxulaysiga, kuwaasoo digniin u diray dadka ku howlan gubista dhirta iyo dhuxulaysiga iyo weliba gaadiidka ka shaqeeya dhuxushaba inay la kulmi doonaan ciqaab adag haddii ay sii wadaan falkan foosha xun ee lagu gumaadayo dhirta. iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadaladoodii ka mid ahaa halkan waxaanu isugu nimi oo aan isugu imaanay muddo bil ku dhow shaqada degmada ka xun oo ay ugu weyn tahay dhuxusha, taas oo degmada Xudun ku noqotay caan iyo masiibo ku furan. baashaas aad iyo aad baanu uga shaqaynay dhowr iyo 22 hogood oo bisil, waxana diyaar u yihiin in shido, waxana ay diyaar tahay dhuxusha in laga soo guro, iyo intaas oo aan tirin karayn oo geed oo go'aan oo quban oo weli la ururin iyo kuwa la gubayo oo la riinta la shido rabo in la googooyo. hawshaasaan galay, ilaah baa noo diray markaas u xilqaanay markaanu aragnay dalkayga oo gubanaya, markaanu aragnay dhirtii oo la masaaxayo dhirtaas oo degmadu hawl badan baa ka xun. maxaa yeelay sidii dawladii u dhacday wax maamulkii baan soo gaarin, wax shaqo aan soo gaarin, wax waleeda oo muxuu ahaa dawladda qaban jirtay waa ka xun yihiin. haddeer waxaanu soo xilqaanay arrintaas waa balaanka koobaad. ka labaadna insha Allah inaanu kaga qabanno dhulka maarta biyuhu jeexeen iyo dhulka muxuu ahaa wadooyinka go'ay iyo dhulka wasakh taal oo magaalada ah. balankayga labaad kaasna weeye waa nagu culustahay hawshu, aad iyo aad bay noogu badan tahay. waa hawl dawlad iyo maamul ay qaban kareen, waa hawl gaadiid doonaysa, waa hawl ciidan doonaysa, waa hawl muxuu yahay dhibteeda leh, waa hawl doonaysa macdad doonaysa. hawshaas waa hawl laga badan oo nagu culus. cid allaale ciddii waxna kala qabanaysa oo islaama oo maamula diyaar baanu nahay inaan soo dhaweyno. mowduuc la yiraahdo badbaadada ilaah baa wax badbaadiya dhirta. degmada Xudun ee gobolka Sool weeye waxa nahaysata dhibaatada nahaysatana waxa weeye kuwa ay falayaan dad deegaanka u dhashay oo wax magarata oo aan ilaahay xitaa badin oo gaajo badin ee bilwadi baday halaaga iyo dhibta dhirta lagu hayo iyagoo xoola leh oo xoolihii dhirtii u daaqayso bay dhirtii jarayaan. waxay u jarayaan maaha gaajo iyo dhib haysata, waxay u jarayaan mijinjaada iyo weliba khamri inay siistaan bay u jarayaan. calaamaha Allah kayfiye saasay dhirtii ku dhameeyeen. arrintaas waxaanu go'aan ku qaadanay haddaanu nahay dadkii deegaanka u dhashay ee jeclaa, waayo kuwa gubaya waa kuwa u dhashay, kuwa nagu soo guuray oo aanu ka tashanayna baa jira oo soo guurta ah. martidaanu jecelahay laakiin waxay nagu noqdeen wax ma garato, iyagii baa dhirtii xasuuqay. biidnillaahi tacaala waxay ilaahayna waafajiyey inaanu tallaabo cad ka qaadno. dhaqaalaha ku baxaya iyo qarash aad u badan ilaahay waxsan ha siiyo. intii wax ka geysatay ee wax ka tartay shidaal baa naga baxaa, dhowr gaari baan ku baxnaa
muddo hadda dhowr iyo 20 cashaa baanu hawshan wadnay ilig baa jirta qarash xoogan baa nagu baxay intaasoo qarashana dadka deegaanka u dhashaa bixiyey dadka hawshaa gacanta ku haya isxilqaamay cid mushahar siisaa ma jirto waxaanu ku qabnaa weliba hanjabaad iyo dhib waxaanuna ku go'aansanadoo ku tala jiraa inaanu cadaaladda hor keenno oo qaqabanno oo xidhxidhno ciddii wax naga siinaysa gacan yuhuudna allaha ka dhigee dabargoyntaa dhirtayda iyo deegaanka lagu hayo iyo anshaxumada wax allaala wixii nagala qabanayana gacmo furan baanu ku soo dhoweynaynaa abaalla waa ugu haynaynaa hawshaa haddii ilaahay yidhaahdo maaha midaanu ka caajisayno midaanu cidna ka baqayna maaha midaanu cid ugu turayna maaha biidni illaahi tacaala waa dabargoynaynaa dadka deegaanka saa u gelaya iyadoo ayba degmada hawlo fara badan ka dayacan yihiinoo dayac fara badan ka jiro haddana waxay noqotay tan mid aan loo adkaysan karayn dhulkii oo la xaalufinayo dhirtii oo geed hoose iyo good sareba la gubayo oo aan loo turayn oo dad manaxayaala oo aan u turayn dhir sidaa hadeer odayaasha hore ka sheekeeyeen ilaa hadday doonaan 5 qarni jiray oo 100 qof qaadaya harkoodu ama intaas oo 100 oo xoolahay ku noolaayeen caleentooda iyo harkooda saacado yar dab kaga soo horkalaabanaya oo aan geedkii hoosana dhaafayn oo aan waxba u turayn baa dhulka ka dhacday waxaanu kale oo aanu baaq u jeedinaynaa dadka aan magaalada u dhalan ma aha dad ku soo guuray waa dad ku soo duulay xumaynaya dalka waxaanu leenahay sida uu aanu rajaynaynaa in talaabo sharciya oo si degdeg looga qaado ciidina ay ku soo tashan ninkii ku tashadaa ee aan ka tashanina waajibkii uu leeyahay buu helayaa haddii dalka warkiisu ku baxay dad ma leh waxa la arkayaa inuu dad leeyahay haddaanu nahay dadka degmada xudun ku nool waxaanu ku midaysannahay inay tahay guddi yacniga aanu samaynay guddidaasoo arrimaha maaragtay deegaanka iyo horumarinta ka talin doona guddidaasu tallaabadii koowaad ee ay qaado waa dhuxusha sidaa odayadu idiin soo sheegeen dhuxusha intaasoo dhowr iyo 20 hogood ah guddidaa ayaa amarkeeda iyo taladeedu iyo maxay ahayd shaqadeedu ay ku fushay in ay dalka wax ka qabtaan ilaa iyo haddana way wadaan haddaanu nahay guddida waxaanu jeedinaynaa baaq aanu u jeedinayno dhammaan wax allaale iyo wixii ay qusayso ee dhuxul maaragtay ama shida ama iibsada oo deegaankan ah iyo gawaarida gaadiidka ah ee mara gaariga gaadiidka ah ee xudun dhexdeeda mara waxaan u sheegaynaa in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono dhammaan yacniga cid kasta oo gaadiidley ah waxaanu leenahay yuuna soo marin gaarigaaga dhuxusha jida dhibaato ayuu nagu hayaa dalka iyo dadkuba dhibaato ku hayaa waa gaariga lagu dayanayo waa gaariga maaragtay dhuxushiisu ay sababayso kanba halkan buu maraa waxaanu kaloo u sheegaynaa gaadiidka lagu arko degmada xudun ee sida in aanu ku xukunay lacag ganaaxa lacagtaa ganaaxa ah waa arrin aanu go'aan ku gaadhnay maadaama aanu nahay odayadii deegaanka waxaanu iyo dhuxushooda oo la qabanayo yacniga sida dhuxulaha looga gubay dhuxusha ayaa looga gubayaa tallaabo sharciga waafaqsanna laga qaadi doonaa waxaan u sheegaynaa cid kasta oo naga caawinaysa arrintaa hawsha adag ee odayadu ay ka soo sheekeeyeen ee maaragtay hawsha muhiimka ah waxaanu soo dhaweynaynaa cid allaale iyo ciddii wax naga tari karta